الرحيم. وزيرك وزارة القاشانية جمهورية فدرالك الصومالية، وزيرك أمنية جودها، وزيرك arrimaha gudaha iyo federaalka mudane cali xoosh saraakiisha sharafta leh iyo gudoomiyaha deegaanka Sabiidi Caanole iyo dhamaan assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. salaan kadib dabcan maanta waxaan joognaa deegaanka Sabiidi Caanole oo ah deegaanadii nimanka qawaariijta cadawga dib loogu xoreeyay. dabcan maanta waliba ay muuqdaan ifafaalooyin qurux badan dib u dhis uu ka socdo, amni ay tahay, dadkii shacabka Soomaaliyeed ee qawaariijta meeshan ay ku dhibaateeyeen oo ka qaxayn ay dib u soo noqonayaan, iyadoo waliba duruufo adag ay jiraan oo wadanka xaalad adag uu ku jiro, abaaro ay jiraan, haddana ugu yaraan dadkan ay nabad heleen maanta oo guryahooda ay ku soo noqdeen. dadkan oo muddo bilooyin ah qaxooti ahaayo doorkaas ku fiirsanaa. waxaan rabaa dabcan halkan inaan uga mahadceliyo dhammaan ummadda Soomaaliyeed iyo saaxiibadeeda oo dabcan markasto ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed waajibaadkiisa inuu guto iyo dadka Soomaaliyeed inuu garab siiyo garab taagan. maanta dabcan halkan munaasabada u joognaa waxay tahay in dad deegaankii guryahooda ay ka burbureen guryo loo dhisay oo dib loo dejinayo oo waliba bilowga ugu horeeya ah oo aan rajeynayno insha Allah intaas ka badan maanta inta guryo inta laga dhisay ka badan loo dhisi doono. duruufo adag iyo baahiyo badan jiro. waxaan rajeynaynaa dabcan ayadana in insha Allah oo aan ummadda Soomaaliyeed gaar ahaan shacabka reer Sabiidi Caanole aan hadduu Ilaahay insha Allah u rajeynaynaa nabadgelyo iyo waxyaabihii adeegyadii maqnaay sidii saldhiggii booliska iyo MCH iyo baahiyihii kalena waxaan insha Allah rajeynaynaa in sida ugu dhaqsida badan ay wasiiradii joogo ay ka jawaabi doonaan oo dawladda ay uga jawaabi doonto. sidoo kale shacabka Soomaaliyeed meel kastuu joogo ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed wuxuu diyaar u yahay inuu naftiisa iyo dhiiggiisa u huro sidii shalay meeshan nimankii qawaariijta ah oo godad ka qotay looga saaray deegaan kasto ummad kasto Soomaaliyeed ku dhibaataysan in uu dhiiggiisa iyo naftiisa u huro sidii dadkaas looga dulqaadi lahaa. waxaan rajeynaynaa insha Allah ilaahina aan ka rajeynaynaa annagana naga go'an in deegaankan uusan mar dambe cadow ku soo noqon. waxaan kaloo rabaa dabcan inaan u mahadceliyo hoggaanka isku xirka shacabka iyo ciidanka simig oo asaga laftirkiisa dadaalo badan Colonel Iman oo dadaalo badan halkan ka bixisay. haddana 60 guri dhismahooda ay socdaan. insha Allah dabcan wasiirada laftirkooda waxaan ka filaynaa inay doorkooda soo qaataan oo wasiir kasto uu meeshan guri ka dhiso, gurigaasna magaciisa lagu qori doono la dhihi doono gurigan wasiir hebel ah dhis. hadduu Ilaahay insha Allah taasna waan rajeynaynaa. aad iyo aad